aad baan salaamaya saaxiibada meel kasta joogtaan halkan waa hadaleenta 14 saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban oo aynu ku eegi doono malyumaankii waliba Sharmaboy xog ku saabsan jaceelkooda waliba meherkooda aynu eegi doonaa run ahaantii waa laba lamaane oo fanka ka tirsan iminkana guurkooda uu soo ifbaxayo waxaana markaas idin leeyahay noolada waligeena waxaynu eegi doonaa saaxiibada xog ku saabsan qisooyinka waliba dabcan jaceelka qarsoona ee muddooyinkii ugu dambeysay ee soo mareen waliba goorta uu guurkooda dhacayo ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibada Sharmaboy iminkan waa uu baxay oo dhanka iyo waliba Djibouti u boqolay sidoo kale hees hadda ka hor ay ku wada luuqeeyeen oo dabcan malyumaankii waliba Sharmaboy ayaa iminkan noqotay mid markaasi dabcan dhab ah oo haddaba riyadii way kaamilooday amariyada way dabcan rumooday saaxiibada ku soo dhawaada muuqaal kooban waxaan idinka codsanayaa in YouTube ka hadaleenta 14 noo subscribe gareysaan sidoo kalena saaxiibada ku soo dhawaada like-ta share-ta waa dhankiina weeyaan waxaa dabcan leeyahay dabcan muuqaalkan waxaynu ku eegi doonaa dhammaan waxyaabaha ku saabsan malyumaanka dad badan ayay sabraas ku noqotay haddaba dadka qaar xataa waxay u moodaan mid markaasi dhalanteeda laakiin arintan ma aha mid dhalanteeda waa arin dhab ah weeyaan saaxiibada ku soo dhawaada muuqaalkan oo dhameystiran وياهي صاحبها واكا دياد واكا الله له واكا طبعا مليومانك waliba Sharmaboy الله له واكا dad badan ayaa aaminsan in jaceelku yahay waxyaabaha adduunka ugu fiican sababtay tahay malyumaanka waxa ay ka tirsan tahay fanaaniinta reer Muqdisho rantii malyumaanka waxay ku luuqeysay heeso kal ilaaba dabcan heesaha ay ku luuqeysayna ma aha kuwa markaasi dabcan isdhihi karo mid markaasi leeta laakiin waa heeso kal ilaaba ay ku luuqeysay sidoo kale Sharmaboy oo maalmihii ugu dambeysay sanadahanba dabcan oo ka casana dhanka fanka ma lisdhihin runtii Sharmaboy waliba malyumaanka ayaa isguursanaya laakiin calafka markasto ma kula tashanayo qof kasto wuxuu leeyahay qof markaasi u gooniya marka maanta waxa soo ifbaxday in meherkooda uu magaalada caasimadda Muqdisho ka dhacay malyumaanka oo kamida fanaaniinta reer Muqdisho waliba Sharmaboy oo iminkanba shumaca u shida fanaaniinta waliba dhammaan dadka heesihiisa dhageysta ee ku nool gudaha dalkeena Soomaaliya Sharmaboy waa safar weeyaan waa u baxay dabcan iminkan waxa uu joogaa gudaha halka la yiraahdo Djibouti waxa uu dabcan halkaas u joogaa in uu markaas madadaaliyo shacab weynaha ku sugan gudaha wadanka la yiraahdo Djibouti oo ay dabcan iminkan ba ku sugan yahay haddaba malyumaanka waliba Sharmaboy fanaaniin dhowr ah ayaa hambaliyo u diray alalehe Qadar Ibrahim Keyo ninka la yiraahdo oo asina qodiisa iminkan ba 7 ku jira ayaa waxa uu hambaliyo u diray saaxiibkiisii Sharmaboy wuxuu yiri saaxiib sare aad baan kaga mahadcelinayaa guurkiina aday waliba malyumaanka Allah ha ka dhigo mid markaasi qeyreysan ayuu yiri Qadar Ibrahim Keyo oo kamida qodiisa saaxiibada fanka ay ku saaxiibka yihiin Sharmaboy sidoo kale saaxiibada YouTube leeda waxa kamid ah Liibaan aadan cali leeyahay ninka la yiraahdo ayaa kamid ah saaxiibada u hambaliyeysay Sharmaboy run ahaantii waxa uu leeyahay aad baan kaga mahadcelinayaa adigii waliba dabcan dumaashidayda malyumaanka sida hufan oo dabcan noogu soo bandhigteen arintan farxad badan sababtoo ay tahay Sharmaboy waliba malyumaanka waa dad markaasi dabcan isfahansan waxaana idin leeyahay Allah ha idin ka dhigo kuwa markaasi wada jooga oo dabcan waqtiga macaanka badanna wada qaybsada ayuu yiri ninka la yiraahdo Liibaan aadan cali way saaxiib badan baa jira oo dabcan dhanka TikTok hambaliyo ugu diray saaxiib badan baa jira laakiin waxaan iminka idin soo gudbinayaa lama filaan arinta maadaama saaxiibada ku noqotay maxay tahay sababta dabcan ay ku hashiyeen isguursadaan Sharmaboy waliba malyumaanka sababtan ayaan idin soo gudbinayaa dabcan arooskeena dhawaan buu dhacaya hees la yiraahdo ayay horay u wada luuqeeyeen malyumaankii waliba Sharmaboy dad badan ayaa waxa la isdahay malyumaankii waliba Sharmaboy macquul ma aha hadiya dadka qaar way yaaban laakiin markasto waxa weeyaan calafka ma kula tashanayo calafka markasto ma ku dhahayo qofkaasi dabcan adiga ogenayo qoorta ku suraya laakiin markii loo eego Sharmaboy waliba malyumaanka waa dad isjacayl waa dad markaasi xiriirkooda muddo dhowr sano ama 1 sano 2 sano wada socday runtii malyumaanka waliba Sharmaboy dad badan ayaa is weydiinaya sidee ay isku fahmeen waxyaabaha isku fahmeen waxa kamid ah Sharmaboy waxa uu kamid yahay dabcan fanaaniinta ku sugan gudaha Muqdisho sidoo kale
fanaanka Sharma Boy waa daacad weeyaan inta badan ma qiyaamo hablaha sidoo kale waa qof markaasi ee dabcan u nugul in uu dabcan sameeyo family dabcan qofka markuu yahay qof maxaa la yiraahdaayo inta badan fanaaniinta qaar inta badan maxaa la yiraahdaa way naaga badan yihiin laakiin Sharma Boy hore wuxuu u sheegay aniga ahaantii haddii aan guursanayo hal gabar baan guursanaya mid kalena ma doonaya ayuu hore u yiri waa nin markaasi dabeecadiisa aad u wanaagsan runtii waa laga yaabaa in markii qaar aad aragtaan oo kale ficilo xun asagoo sameynaya laakiin markasto qofka waxa laga fiiriyaa qaabkiisa ma laga fiiriyo oo waxa la fiiriyaa dabeecadiisa waliba qalbigiisa haduu qalbigiisa yahay mid markaasi nadiif ah waa qof markaasi aad u hufan waa qof markaasi aad u roon weeyaan sidoo kale milyuumaanka ayadana waa fanaaniinta degan ee gudaha dalkeena Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho fanaaniinta dabeecadooda xataa dabeecad ahaan oo kale intan way degan tahay sababtay tahay ma fanaaniinta inta badan hadalka badan ma fanka dabcan sidoo kale heesaha ay ku luqeynayso milyuumaanka waa heesaan dab yar shideen weeyaan sababtay tahay fanka labadaba waa lagu talagalay weeyaan milyuumaanka inta badan heesaha jaceelka iyo heesaha maxaa la yiraahdaa ay ku luqeysaayo oo aadiya jaceelki iyo waxyaabaha ka soo horjeedo soo markaa Sharma Boy waa nin markaasi madadaaliya oo dabcan waa ka dukaankaasi gashay oo kale ku luqeeya heesiisa soo markaa runaantii waxa idin leeyahay hadii aad dabcan noloshiina alle waa ka guurkiina guri qayr guurkiina gurinagi guulow alla hada ka yeelo ayaana idin leeyahay kulay markasto nolosha markaad wada dhisaysaan waxay u baahan tahay dulqaad kuwii dulqaad ka badan Allah idin ka dhigo sababtay tahay waxa laga yaabaa in markaasi gabadha ay noqoto mid markaa reerka ku tiirsan ama reerka dabcan garabka koowaad ama waxa la yaabaa wiilka laakiin labadiina markaad noqotaan labada reerka u muhiimsan waa mid aad u hufan weeyaan kulay guurkooda dhawaan buu dhacay laakiin meherkooda ayaa dhacay dad badan waxay leeyihiin macquul ma aha milyuumaankii waliba Sharma Boy markii loo eego waadiyad waxa laga yaabaa Sharma Boy milyuumaanka inay daahaan oo kale tay weyn tahay yaani way gaaday xataa dad qaar way dhahayaan sababtay dadkii baraha bulshada isticmaal wax kasto way dhahayaan macna aadiyad marka milyuumaankii waliba Sharma Boy markii la qiyaaso runtii Sharma Boy waa nin dhalinyaro oo daadiisa 20 sano jir weeyaan xataa milyuumaanka qudheeda waa iska yarta in kasto macna hadda iminka markii la isla barbar dhigo kale Sharma Boy waliba milyuumaanka la dhahayo alle waa ka weeyay laakiin markasto weynaan iyo habo ma tarayo weynaan iyo habo ma tarayo waxa wax taraya waxay tahay kaliya waa in dabcan la isku samraa waa in raali la isku noqdaa waa in markaas la is aaminsanaada intaas oo idil waxyaabaha maxaa la yiraahdaa nolosha ku saabsan weeyaan muhiimadu ma hada kulay muhiimadu waxay tahay dulqaad muhiimadu waxay tahay in la isfahmo kulay hadii aad isfahantaan qofka aad nolosha aad la sameynayso waxa aaminsanahay 100% aad noqon karto qof markaasi aad iyo aad u hufan saaxiibada muuqaalkan intan ayaan ku soo gabagabeynayaa milyuumaanka iyo waliba Sharma Boy oo Muqdisho meherkooda oo ka dhacay runtii dadka badi waxa markaasi leeyihiin hambaliyo qudheena baahda hadalaynta 14 maxaa inoo diidayaa in hambaliyada iyo waliba dabcan farxadda aynu la wadaagno dhammaan saaxiibada oo iminkanba doonaya in ay ogaadaan waxyaabaha xaqiiqda ah ku saleysan milyuumaanka waliba Sharma Boy saaxiibada waxa ay leeyahay muuqaalkiisa xiga intan ayaan ku soo gunaanadaya oo aan ku soo gabagabeeyaa saaxiibada ugu dambeyntii waxaan idin ka codsanayaa in YouTube ka hadaleenta 14 noo subscribe gareysaan waa namaasay